shacabka baxda iyo culimada magaaladaas oo xadra isugu soo baxay iyo meydadka al-shabaab qaarkood oo ay ku kordigriyeen ciidamada dawladda oo ku sii qulqulaya baxda iyo al-shabaab oo ku jabay dagaalkii saakay halkee ayay ka yimaadeen al-shabaabkii weerar baxda iyo xogta xaaladihii ugu dambeeyay ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa balse daawad intaadan guda gelin daawashada muuqaalkan waxaan kaa dalbanaynaa in beejkan aad leeg saarto falow aad dhahda siina sheergarayso si aan u helno saaxiibasaadoo kale u wanaagsan mahadsanid waxaa haatan degan xaaladda guud ee magaalada baxdo ee gobolka galgaduud kadib markii saakay magaaladaasi ay weerar gaadmaha ay ku qaadeen dagaalamayaal ka tirsan kooxda al-shabaab abbaaro 11 iyo barkii aroornimo wax yar ka hor markii la tukaday salaadii subax al-shabaab ayaa 3 jiha ka weeraray magaalada baxdo oo qiyaastii 150 kiiloomitir u jirta magaalada cadaado ee gobolka galgaduud iska caabin xoogan ayay kala kulmeen shacabka iyo culimada ahlu sunna oo magaaladaasi joogta waxaan dadka deegaanka ay noo sheegeen inay jirtay feejignaanta ah in al-shabaab magaaladaasi ay ku soo food leeyihiin dhawaqa hub culus iyo rasaas xoogan ayaa laga maqlayay gudaha waxaa uuna dagaalka socday ilaa iyo 8 subaxnimo ku dhowaad 10 ka mid ah ayaa la dilay xubnihii al-shabaab sida wararka qaar ay sheegayaan kuwaas oo qaarkood ay ka carreen midadkooda inta uu dagaalka socday shacabka magaalada iyo culimada ahlu sunna ee deegaanka joogta ayaa jilbaha u dhigtay al-shabaab kuwaas oo ku qasbay inay dib uga baxaan magaalada intaas kadib shacabka magaalada iyo culimada ayaa isugu soo baxay bannaanka masaajidka ugu weyn ee baxdo kuwaas oo digri camirtay dagaalamayaasha al-shabaab ee saaka weerarka ku qaaday deegaanka baxda ayaa ka yimid dhinaca deegaanka bacadweyn oo bilooyin ka hor ay qabsadeen waxaana la sheegay inay haatan ay dib ugu laabteen goobihii ay ka soo duulaan tageen ciidamo ka tirsan dawladda ayaa la sheegay inay ka baxeen magaalada cadaado kuwaas oo gurmad ahaan ugu socdo baxdo maamulka galmudug ayaa dayacay shacabka baxdo oo xitaa aan ka caawin ciidamo isaga difaacaan al-shabaab oo magaaladaasi duleedkeeda ku sugnaa sidoo kale waxaa hore gacan uga waayay galmudug shacabka bacadweyn oo dagaal bilooyin ay kula jireen al-shabaab inkastoo markii dambe danta ay u run sheegtay oo al-shabaab ay deegaanka qabsadeen